السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال وإذن سلامي وأستاذ عبد السلام حبيب معانا الصوماليين مادة إنجليشية dhammaan ardada waa idin wada salaamay. halkan waa channelkayga youtube channelkayga Xabiib Qaraawi channel waan idinkugu soo gudbin doono culuum badan ama aqoon ku saabsan maadada Englishka iyo sidoo kale cilmiga maamulka iyo maareynta ee public administration-ka. marka waa ardada Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigta iyo kuwa dugsiyada sare ayaa ka faa'iideysan kara channelkan. haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe inaad saarto ha iloobin. cashirka hadda aan dhigayo waa fasalka form 3 ee buugga muqarrarka ah ee dowladdu soo saartay. marka waxaan rabaa insha Allah ardada fasalka form 3 inay aad iyo aad ula socdaan casharada insha Allah taala magaalada Muqdisho. dhammaan ardada aan horay wax u soo dhigay ee degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ku sugan waan wada salaamayaa. soo dhawaada. channelku waa channelkiina Xabiib Qaraawi channel. ha iloobin inaad subscribe saarto, share garayso videogan insha Allah taala. cashirkan waa the first lesson oo ugu horeeya marka laga reebo revisionka iyo muraajacada uu bixinayo fasalka form 3. cashirka wuxuu ciwaan u ah marka the truth shall set you free oo yani ka dhigan the truth runtu shall set you free waxay ka dhigaysaa mid free ah. way ku baxsanaysaa yani mar bay ku sii deynaysaa, way ku badbaadinaysaa. setting free somebody ina free ka dhigtid oo faraxsan. marka runtu mar bay yani wax ku taraysaa ama ay ku badbaadinaysaa weeyaan. the truth shall set you free. Once upon a time there was a father who often gave advice to his son Faisal. Once upon a time eragaas waxa weeyaan meesha anaga aan ka dhahno beri baa waxaa jiray waqti baa waxaa jiray. once upon a time waqtiyada kamid ah waxaa jiray waxaa jiray the father aabe who often gave advice kaasoo alaaba siin jiray waano ama talo to his son wiilkiisa Faisal la yiraahdo ayaa jiray. mar walba wiilkiisa Faisal siin jiray. erayga son waa wiilka adiga aad dhashay baa la yiraahdaa. marka arintaas muhiim waa in ardada ay ogaadaan wiilka marka si caadi loo hadlaayo waa boy, laakiin wiilka adiga aad dhashay waxaa la yiraahdaa son. badina waxaa arkaysaa dadka Ingiriisiga ku hadla gaar ahaan dadkeena ardada wax barata in wiilkaygo kaleeto ay dhaleen my boy iska leeyahay. taasi sax ma aha. my son ayaa sax ah. sida maxaan ku yiraahdaa maxaa yeelay luqadda Ingiriisigu way ka duwan tahay sida af Soomaaliga oo kale ma aha. af Soomaaliga waxaa laga yaabaa wiilka adiga aad dhashay inaad tiraahdo wiilkayga, wiilka kalena aad dhahdo erayga wiil la si isticmaalo. laakiin Englishku waa kala duwan yahay. boy waa wiilka aan adigaada dhan, son waa kan aad dhashay, daughterna waa gabar. marka once upon a time there was a father waxaa jiray aabe who often gave advice kaasoo mar walba siin jiray talo to his son wiilkiisa Faisal la yiraahdo. Faisal was a good son. Faisal wuxuu ahaa wiil wanaagsan ayuu ahaa. he was obedient and was always open to his parents' guidance. wuxuu ahaa baa la yiri baari ayuu ahaa. he was obedient wuxuu ahaa baari ayuu ahaa and was always open mar walbana wuxuu ahaa mid u furan to his parents' guidance hanuuninta ama talooyinka waalidiintiisa ayuu mar walba wuxuu ahaa mid open u ah, soo dhaweeya, u furan. one day maalin maalmaha ka mid ah the old man ninkii duqa ahaa ama waayeelka ahaa said to Faisal ayaa Faisal wuxuu ku yiri baa la yiri. marka calaamadan arkayso oo calaamadan labada dhibic ah waxaa la yiraahdaa waxa weeyaan quotation marks, waa calaamadaha hadalka muujiya. marka Faisal aabihi wuxuu yiri when I die I will not leave you with any material wealth or assets. when I die markaan dhinto I will not leave you idinkagama tagayo with any material wealth wax hanti ah idinkagama tagayo oo material ah oo walax ah oo wax la taaban kara ah idinkagama tagayo or assets ama hanti ah. but I am leaving you laakiin waxaan idinkaga tagayaa buu yiri with invaluable advice waano waxtar leh ayaan kaga tagayaa with valuable advice waxa waano qiimo leh. so listen carefully sidaas daraadeed si wanaagsan u dhageyso buu yiri. my son wiilkaygiiyo never tell a lie ha sheegin marna. waanada marka uu sii waxay ahayd never tell a lie ha sheegin been. for if you do sababtoo ah haddii aad been sheegto news spreads very fast. waxa weeyaan wararku spreads way faafayaan very fast si dhaqso ah and others will dislike you dadka kalena way ku nacayaan. marka after a short pause
Paragraphka labaad, after a short pause waxaa la yiri hakad yar kadib. Ereyga pause waa hakad, wax yar uu aamusay kadib. Faisal said, Faisal baa wuxuu yiri, okay father, I accept and take your advice. Waayahay aabe, waan qaadanayaa, waan aqbalay, waana qaatay waanadaada. From now on, wixii hadda ka bilowda, I'm going to tell nothing else but the truth. I am going to tell nothing else but the truth. Aniga wixii hadda ka bilowda, waxaan doonayaa to tell inaan sheego nothing waxba else oo kale but the truth oo aan ahayn run. Wixii hadda ka bilowda run la igu ogtahay ayuu yiri ninkii Faisal ahaa. Not long after, waqti aan dheerayn, muddo dheer kadib, the old man, ninkii duqa ahaa, passed away, waa uu geeriyooday baa la yiri. Pass away ereygaas waxa weeyaan iyo waxay isku micno yihiin ereyga die, dhimasho. Sidoo kale waxaa la yiraahdaa kuwaasi idiomatic expressions baa la yiraahdayo, waa sarbeeb weeyaan oo yacni pass away, geeri baa laga wadaa. The old man, ninkii passed away wuu geeriyooday. He left no inheritance, kamana uusan tagin baa la yiri wax dhaxal ah. No inheritance, wax dhaxal ah kama uusan tagin. And his son, wiilkiisii Faisal ahaana, was left waxaa looga tagay destitute, faqri ayaa looga tagay oo waxba muusan haysan. Marka maadaama aabihiisan waxba ka tagin. After living in hardship for a while, kadib markii Faisal uu ku noolaa dhibaato uu ku noolaa for a while muddo, Faisal wuxuu go'aansaday baa la yiri to leave the town, inuu isaga tago magaalada, and go in search of a job, una doonto raadinta shaqada, inuu doon a better life iyo nolol wanaagsan. While Faisal on his journey, Faisal asagoo safarkiisa ku socda, he came by, wuxuu soo agmaray baa la yiri a well, ceel. There were human bones all around the well. Ceelka oo dhan waxaa ku yaalay baa la yiri oo joogay lafo bini aadam, human bones all around the well. Ceelka oo dhan ayay ku hareersanayeen. He stood there, halkaas ayuu istaagay, surprised, asagoo yaaban, and a bit frightened, xoogaana argagaxsan, over what might have killed, ka argagaxsan waxa dili karay the people, dadka there ee halkaas waxa dilay buu isweydiiyey. As he was wondering, asagoo isweydiinaya about the bones, lafihii, he saw baa wuxuu arkay baa la yiri a group of travelers, koox safarey ah, coming towards the well, oo soo aadaya dhanka ceelka. When the travelers, markii safareydii reached ay gaareen the well, ceelka, they met, waxay la kulmeen Faisal, and so waxay arkeen that he was very frightened, inuu aad iyo aad u argagaxsan yahay. Faisal told them, paragraphka saddexaad marka wuxuu leeyahay, Faisal ayaa u sheegay that he wanted to go into the well to drink water, inuu rabay inuu ceelka galo biyana uu ka cabo. The travelers, safareydii, warned Faisal way uga digeen about the grave danger, khatarta, maxaan ku iraahdaa moolkan ama gravekan ama qabrigan, that was in the water ee biyaha ku dhex jira. A monster lived in the well. Monster ayaa ku noolaa baa la yiri ceelka dhexdiisa. Monster waxaa la yiraahdaa wax shaydaan oo jin ama sixir ama wax saas ah oo cirfiidi jin ah oo meel ku wada nool baa monsters la yiraahdaa oo yacni dadkana dilaya in the well. They said, markaas waxay dhaheen, sidaas ayay dhaheen, and killed, kaasoo dilaya bayran whoever went in, mid qof kasta oo meesha ceelka gala waxa waaye asagoo lafihiisa laga soo saaraa. Faisal defied. Faisal wuu iska dhaga tiray the warning, digniinta, and went into the well, ceelkii ayuu galay. When he reached, markuu gaaray the bottom, hoosta markuu gaaray, he saw, wuxuu arkay a huge and ugly monster, jin ama maxaan ku raahdaa cirfiid fool xun oo weyn, and a pretty small monster, iyo mid yar, standing oo taagan by him, asaga agtiisa. The big monster, kii weynaa baa la yiri, gave Faisal a look, ayaa Faisal daymo siiyey, wuu dayay, that was so scary, taasoo ahayd mid aad u cabsi leh, that he nearly went into shock, taasoo uu ku dhawaaday Faisal inuu shock la dhaco. Faisal was terrified. Faisal wuu argagaxay and could not utter, wuuna dhihi waayey a word, eray, utter iyo say ee isku micnaa. The huge monster, jinkii weynaa, got closer to him, ayaa asaga usoo dhawaaday, and said, wuxuu ku dhahay, tell me boy, wiilyahow ii sheeg, who is prettier, me or this one? Keebaa qurux badan, aniga iyo midkan? Faisal remembered. Faisal wuxuu xasuustay his father's advice, taladii aabihii ayuu xasuustay oo ahayd to always tell the truth, inuu markasta runta sheego. He replied to the monster, wuxuu ku jawaabay kii jinka ahaa, you are prettier, adiga ayaa qurux badan. If the judgment, haddii
marka wuxuu yidhi if the judgment waa haddii garsoorka ama xukunka is based on lagu saleeyo fear of you, cabsi aan adiga kaa qabo markaan ku saleeyo adaa qurux badan. But if judgment is based on my fear of Allah, laakiin haddii xukunka aan ku saleeyo cabsida aan ilaahay ka qabo, the small one is prettier than you, midkaan yar ayaa kaa qurux badan. Marka waa cajiib yani maxaan ku rahdaa jawaabta uu Faisal uu bixiyay. You are prettier if the judgment is based on fear of you, but if judgment is based on my fear of Allah, the small one is prettier than you. So thank you very much for watching this video. That's all of the first lesson of the class of Form 3 for Somali Secondary Schools. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my channel. Next lesson will be the lesson is still continuing, it's not finished, so next time we'll take the second part of this lesson. Thank you for watching. Bye bye for now.